maanta waxaan taaganahay madaarka weyn ee caasimadda maamulka Khaatimo waxaan sugaynay ra'iisul wasaarihii maanta waa maalin taariikhi ah muddo ku dhow 56 sano 12 Abriil ayaa waxaa waa cusub bariyay gobolada ACC Khaatimo kaasoo booqasho taariikhi ah ku yimid ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdi culus oo hogaaminayay oo ka koobnaa golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka Khaatimo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo booqasho 2 cisho ah qaadatay ku joogay ACC Khaatimo garaan magaalada Laascaanood ayaa dhagax dhigay wadada isku xidha caasimadda Laascaanood iyo Buuhoodle jaamacadda ummadda faraca Laascaanood ee ACC Khaatimo xarunta National ID iyo xarunta dugsiga Barbooliis oo heer federaal ah isla markaana booqasho ku tagay degmada Cadeeye ee gobolka Sool qofka muwaadinka ah waa in la rejistareeyaa ID-na uu hela National ID marka xuquuqdaas ayaa maanta uga curatay deegaanka Khaatimo halkan marka waan ku faraxsanahay in uu hogaamiyaha madaxweynaha noqday qofkii ugu horeeyay qaata kaarkaas waxaanan u rajaynayaa insha Allah in meelo kalena iyo degmooyin kale hadii la yiraahdo laga furi doono oo deegaankan dadka reer Khaatimo ay si ballaaran u qaadan doonaan hadii la yiraahdo ID-ga waana ID-gii qofka Soomaaliga ah yaa Soomaaliya ka jawaabay way marka waa ilaahay mahadi aad iyo aad u mahadsantiin sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo waftigiisa ayaa tamashlayn iyo galaangalba ku tagay meel ku dhow magaalada Laascaanood ee caasimadda Khaatimo taasoo ay tirdhaxad u ahayd nabadda iyo ilaalin la'aanta wasiirada iyo xildhibaanada labada gole oo nafis badan ka helay magaalada Laascaanood dhinaca kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ooda ka qaaday 25 maxbuus oo rayid ah oo ka soo jeeda Somaliland isla markaana iyagoo ku labisan astaanta qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee calanka buluuga hore u raacay waftigii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maanta ka ambabaxay iyagoo farxada iyo rayn ay ka muuqato isla markaana u mahad celinaya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo maamulka Khaatimo iyagoo maanta ka ambabaxay magaalada Laascaanood ee xarunta Khaatimo isku soo wada duubo shacabka Khaatimo ayaa dareemaya horumar siyaasadeed iyo mid shacaba oo la halmaala maamulkooda oo jiray wax ka yar 20 bilood isla markaana ku tallaabsaday tallaabooyin wax ku ool ah Yaasiin Faytiin Jirbay living kugaya hadaynan isgargaarin guushaman heleen gamcawada jirbay living kugaya hadaynan isgargaarin guushaman